sanad guuradii lixaad ee kasoo wareegtay aasaaska shirkadda korontada Beko ayaa waxaa ka hadlay mas'uuliyiin ka tirsan shirkadda Beko. Waa kan madaxa howlgelinta Cali Maxamed Kaariye oo ugu horreyn si guud uga hadlaya xogta shirkadda. Shirkadda Beko waxaa la aasaasay May 2014 waa shirkad ay ku midoobeen shirkado ganacsato Soomaaliyeed ay maalgeliyeen ayagoo ugu daneynaya dadka ku nool Muqdisho ku nool ama Xamar ku nool si uga faa'iideeyaan adeeg tayo leh oo koronto tayo leh uga faa'iideeyaan. Waxay bixisaa shirkadda Beko adeeg koronto oo tayo leh 24 saac. Sidaas si lamid ah service-ka dadka loogu qabanayo maintenance-gana aad ay u degdegsiyo badan yahay. Sidoo kale Beko waxay ku baahsan tahay gobollo badan oo kamid ah dalka kamid ah sida gobollada Shabeellada Dhexe, Shabeellada Hoose iyo Jubbada Hoose. Shirkadda Beko intii ay soo jirtay waxay sameysay horumar badan oo dhinaca dadweynaha loogu daneynayo ama sida dadweynuhu uga faa'iideynaha wax badan ay bulshada u sameysay oo horumar ah. Waxaanu ka soo qaadi karnaa waa aad u tiro badan yihiin laakiin waxaanu ka soo qaadi karnaa korontada halkii kilowatt waxaa la gadayay $1.2 markii ay midowday shirkaddan la aasaasay Beko waxaa la gadayay $1.20 ilaa alxamdulillah ilaa intaas oo sano Beko soo jirtay sanad walba waxay sameynaysay qiimo dhimis ilaa hadda tii ugu dambeysay qiimo dhimistii ugu dambeysay la gaarsiiyay eber dhibic 36 senti halkii kilowatt in la gaarsiiyay qiimihiisa. Marka waa faa'iidooyinka aadka u wanaagsan oo aad u waaweyn oo ay shirkaddu dadweynaheeda ay gaarsiisay ka mid tahay. Shirkaddu waxay leedahay xarumo dab dhalimeed oo waaweyn oo meelaha dabka laga dhaliyo power station-ka la yiraahdo oo waaweyn oo ay ka mid yihiin Daarusalaam, Jabadgeel taasoo ay ku aruurisay guuxii iyo matoortii iyo waxyaabihii qaylada badnaay oo bulshada ay ku hayeen interrupterka ay magaalada ku hayeen inay banaanka kaga saartay oo ay meelahaas kooban ay ku aruurisay. Sidaas si lamid ah waxay shirkaddu sameysay oo shirkaddu ay Beko sameysay energy renewable ama korontada qorraxda laga dhaliyo oo solar system-ka la yiraahdo ay sameysay oo ballaaran si ay deegaanka friendly ula noqoto oo aanay isbedelka cimilada ku imaanayso ay ku keenayaan waxyaabahan air pollution-ka la yiraahdo ama carbontu ay hoos ugu dhigaan ayay waxay sameysay solar system laga dhalinayo cadceedda qorraxda taasoo faa'iido deegaankiina u leh dadkiina u leh oo shidaalkii iyo qarashkii ku baxayay shidaalka lagu gubayay qorraxda looga faa'iideynayo qarashkan la dhimayo oo laga dhimayo kilowattka la gadayo la dhimayo 0.36 senti la gaarsiinayo meesha uu ka yimid waa solarkii oo laga faa'iideystay cadceeddii oo dadka looga faa'iideeyay. Sidaas si lamida horumarada ay shirkaddu sameysay waxaa ka mid ah transmission-ka ama habkan oo dab gudbinta waxay leedahay laba system shirkaddu oo transmission ah oo midna uu yahay 12 kilovolts 11 kV la yiraahdo iyo 33 kilovolts oo la yiraahdo 33 kV la yiraahdo ayay leedahay oo habkeeda transmission-ka sidaas si la eg bilicda magaalada ay ka qayb qaadataa ama wadooyinka waxaad arkaysaa baalayaashii jabnaay qaabka daraayo shirkaddu meel walba suraan jiray inay nadiifisay oo baalayaal aad u quality sareeya ay ku xirtay wadooyinkii ku taxday bilicda magaalada kuwaas oo ka qayb qaadanaya waxyaabaha ay hore u dhaqaajida ay ka mid tahay shirkadda Beko. Waxyaabaha ay ka qayb qaadato kale waxaa ka mid ah oo ay ka qayb qaadato shirkadda Beko shaqo abuurka habkan oo shaqo abuurka waxaa laga yaabaa shaqaalaha Beko inay hadda ku sii dhow yihiin 1350 halkaas inaan maleynay ilaa 1400 inay sii cagacagaynayaan sanad walbana la qoro dhalinyaro aqoon leh oo jaamacadaha ka soo baxay
ama dugsiyada farsamada korontada ka soo baxay ayaa la qoraa iyadoo maarata kulay idaacadaha iyo meediyahaba aad kala socotiin mar walba iyo webka shirkadaba iclaam la geliyo marba loo baahan technician-ka markii loo baahan electrical technical-ka markii electrician-ka loo baahan yahay markii engineers-ka oo electrician-ka loo baahan yahay iyo shaqo kasto la qabanayo marka iyaduna waxaan aad u maarata ugu hanweynahay inaan iyadana sii wadi doono oo shaqo abuurka iyo maarata dhalinyarta jaamacadaha iyo iskoolada farsamada oo maarata xirfadaha ka soo baxaya inaan iyadana shaqo abuur weyn u sameyn doono ayaan rajaynaynaa waxyaabaha kale oo aan ka qayb qaadato shirkadda Beko ay ka qayb qaadato waxaa ka mid ah maarata baahiyaha bulshada ama waxyaabaha la yiraahdo social responsibility-ga oo ogtihiin inaanu gacanta ay ka geysato shirkadda Beko gacan weyn inay ka geysato markii ay fatahaaduhu dhacaan oo kale ama ay hadda ka hor u soo dhaceen masiibooyinkii fatahaadaha beledweyne iyo ka mid ahay waxa maarata dhibaatooyinkan kale oo ay keenaan cudurradu sida hadda tii u dambeeyay cudurkan maarata COVID-19 ka la yiraahdo oo masiibada caalamiga ah waad ogtihiin in isbitaalkii Martini maarata lagu dabiibayay bukaanada ay cudurkan COVID-19 ku soo rito aan maarata korantadiisii kafaala qaadnay ayna ko u sameynay electric oo koronto maarata toosa iyo backup engine oo maarata hadii lacala ay dhacdo inay maarata korontadaasi ay tagto automatically markiiba hore looga wareegayo sida la ajligeed shirkadda Beko mar walba waxay maarata diyaar u tahay bulshadeeda inay u faa'iideyso ma aha inay ka faa'iideysato waxa shirkaddan ay u taagan tahay inay bulshadeeda u faa'iideyso dhinaca wadanka si ay wax ku dhismaa wadan kasta ah markii ay korontadiisu ay cheap tahay ama raqiis ay tahay warshado imaan karaan waxaanu danaynaynaa inay wadanka warshado badan oo haddaba ay kamid yihiin warshada birta shiido kale ay kamid yihiin iyo warshadahan tirada badan oo ogtihiin waa maarata oo ka dhisan ama biyaha noqdeen ama ceelal ha noqdeen ama maarata isbuunyinka noqdeen ay koronto raqiisa siisay shirkadda maarata Beko haddana waxaanu leenahay ganacsatooyinka kasta oo ku haminaya maarata inay soo keenaan warshado iyo waxyaabo u baahan koronto oo ay kaga baqayaan koronto ama aan helaynina ha kaga walwalinina marka aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin